gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti ayaa shir gudoomisay kulan looga hadlayay arrimaha waxbarashada oo ay ka soo qayb galeen gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada iyo degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xiran. Kulankan oo ka dhacay xarunta agaasinka waxbarashada ayaa diiradda lagu saaray gorfeynta hanaanka wada shaqeynta agaasinka iyo degmooyinka gobolka Banaadir. Kulanka markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay kusimaha agaasinka guud ee waxbarashada maamulka gobolka Banaadir Maxamuud Xasan Naasbara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamay dhammaan maanta oo taariikhdu tahay 20-ka bisha January 2022 waxaa noo qabsoomay shirkeena dardargelinta waxbarashada gobolka Banaadir. waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Axmed Shakeeti. shirkeena waxaa looga hadlay dardargelinta guud ahaan waxbarashada gobolka Banaadir ee xooga lagu saaray arrimaha la xiriira tayeynta waxbarashada, sixidda xogta waxbarashada iyo dhammaan caqabadaha jira sidii loo xalin lahaa si wadajir looga qayb qaadan lahaa degmooyinka gobolka Banaadir iyo saddexda deegaan 17 degmo gobolka Banaadir iyo saddexda deegaan gobolka Banaadir guud ahaanba inay noqoto xogtaasi xog sugan waxbarashada guud ahaan. waxaa la isla qaatay in si wadajir ah xogtaas loo dardargeliyo looga qayb qaato ilaa heer degmo ay gaarto xogtaas mas'uuliyadaasina ay noqoto mas'uuliyad wadareed loo wada dhan yahay. runtii waxaan rajaynayaa inay noqon doonto kulan miro dhal ah inuu noqonayo kulankaasi oo caqabado badan oo jiray looga gudbi doono, looga heli doono xalal caqabado taagnaa oo ay ka mid tahay xogta waxbarashada oo caqabado ka jireen, sidoo kale in la dardargeliyo oo sugidda xogta iyo tayada waxbarashada xoogga lagu saaro.